بسم الله الحمد لله waxaan jeclahay saddex qodob oo aad u kooban oo wiigan iyo wiigii ka horeeyay dhacay inaan midba erey isdul taago ummadeena waxa lagu amaanay oo quraanka meelo badan lagaga hadlay inay ummadii hore kaga duwan tahay inay wanaagana isfarto xumaana iska reebto shalay waxa lagu qabtay Hargeysa xus askartii Ingiriiska ku dhimatay dagaalkii labaad ee adduunka oo halkan qaar ka mid ku aasan yihiin ayaa xus loo sameeyay ubax baa la keenay oo loo dabaaldegay kiniisad meesha ku taala ayaa la tegay dad badan oo reer Hargeysa baa ka qayb galay xuska gaaladu sameynaysa ee askartooda ay ugu dabaaldegayso waxaan kulliba aan wajiyada si fiican u gartay Faysal Cali Waraabe iyo Adna Aadan Facebook haddaad gasho sida dadku u diiday ee uga dareen celiyay si qeyr caadi bay la malayn karay hadalladii ku qoraa waxa kamid ah Faysal gudoomiye Faysal miyaanu dadkiisa la dareen iyo la diin ahayn Faysal xaflad kasta oo ka hadlayo wuxuu ku bilaabaa insha Allah ta'ala madaxweynena wuu soo sharax maantana halkaas u maraya waxaan soo jeedin lahaa inuu ka waantoobo meelaha noocaas oo iska daayo Adna Aadan baan iyana arkayay adna aad baa loo ixtiraamaa laakiin haddii arrintu diin noqoto lagu ixtiraami maayo xaqiiqatan Somaliland iyo ixtiraamka qofka labadaba diinta ka weyn waxaan leenahay dadka damiirku nool yahay islaamnimada iyo iimaanka dhabta ah leh kama adkaysan karayaan in hortooda waxyaabaha lagu sameeyo waxaan qodob su'aal u soo jeedin lahaa culimada dalka waxa weydiin lahaa marka hore inay banaan tahay in dad gaala ah lagu aaso dhulka islaamka marka labaad in loo dabaaldego loo xafladeeyo marka saddexaad in dadka islaamka ah ay ka soo qayb galaan iyagoo la qushuucsan oo iyana raali kaga ah su'aalaha waxaan jeclahay culimadu inay dadka u bayaamiyaan in kiniisadaha iyo meelaha ay iyagu dee u ah muqaddaska la booqdo culimadu inay arrintaa ay ka hadasho qodobka waxaan ku gabagabeynayaa 58 baa halkan waxa yimi boqoradda Ingiriiska adeerkeed dabadeetana imaatinkiisii xaflad weyn baa loo sameeyay ninbaa ka geeraaray wuxuu yidhi sidii naag dhali weydayoo dhawaan eebba wax siiyayoo dhabta wiil cad ku haysa dhaladkii Ingiriisow waanu kuu dhagabeelee xaggaan kaa dhunkada dadkii meesha joogay iyagoo aad u dhibsaday ninkaa meel bay u tilmaameen inuu ka dhunkado waxay halkaa ka dhunko afka soo marin kare maayee laakiin meel bay u tilmaameen qodobka intaas ayaan kaga baxayaa waxaan leeyahay ciddii kasta ee tallaabooyinka qaada ishaanu ku haynaa bulshadaanaanu ku soo jeedinaynaa waana waajibkana saaran qodobkaas waa ka qodobka labaad ee aan raacinaya waxa weeye isna wiigan dhacay abwaanadii dalka ugu waaweynaa ayaa la isugu yeedhay 4-5 maalmood ka hor meel aan dhow jeer ka hadlay oo aanan jeclayn oo leeyahay xarunta dhaqanka yaa u yeedhay abwaanada waxa lagu yiri waxa ka hadashaan doorashada Mareykanka iyo dimuqraadiyadda wanaageeda dadkii runtii markay daawadeen aad bay ula yaabeen waxyaabahan sheegaya hadaa moosan anigu inaan wax dhaliilayo Facebook galo oo iyo YouTube galo oo kobankii faaladii laga bixiyay eega taasa ama ay marxaati furaysa aniga ama iga dhigaysan in cid iska cambaaraynaya abwaanadii waxaan la yaabay waxaa leeyahay Cabdi Qayso wuxuu madaxweynaha Mareykanka wuxuu leenahay naga war hayo na ogow wajiba isna hadlay wuxuu yiri dimuqraadiyaddu ha waarto madaxweynaha Mareykanka waxaan leenahay ilaahay xaq ha ku tuso bal madaxweynaha Mareykanka ilaahay xaq ha ku tuso adigu iswaafaji odayaashaas waxaan arkay in kale isna geeraarayo oo dimuqraadiyadda iyo baga loo riday Trump iyo isaguna odayaasha
dad ujeeddo gaara leh ayaa u yeedhay oo waxaa geliyey raggii maanta ninka ugu yaray 70 waa ka sarreeyay ragga halkaa fadhiyey raggii dimuqraadiyad iyo ammaan lahaa madaxweyne Mareykan oo la doortay maaha teeni baa wada daldaloosho oo wada qabyo ah oo xaaladeenna halkay marayso aynu ognahay marka odayaashaana waxaan oran lahaa wixii dambe la idinku yeerayo iska hubiya dad ujeedooyin laba idinku guureeyay wixii dambe iska hubiya taasna intaasaan odhanayaa qodobkan ku gabagabeynaya waxa weeye wiiga ka horreeyay waxaynu muraara dilaac la ahayn oo meel walba uga barooreen oo uga ooyeen nabigi baa la aflagaadiyay alayhi salaatu wasalaam oo madaxweynaha Faransiisku aflagaadiyay mudaharaadyo nadwooyin meel badan baynu ka qaylinay haddaynu sidaana u qaylino kiniisadihii Hargeysa ku yaalayna u qushuucayno u sujuudayno calankiina tawxiid iyo laa ilaaha illa allah ku qoranay bal sida isu waafaqayaan shacabow idinkaan idin weydiiyey intaasaan doonayay maanta inaan ka hadlo ruunkay balaa waa uga mahadnaqayaa fursaddu siiyay shacabkana waa salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu